maaragtay wiilashu wax la wareysay waxay noo sheegeen meesha laga qoray inay maaragtay laba nin nabad sugidda ka tirsan tahay midna uu yahay nin shacaba nabad sugiddii markii ay sheegteen waxaa saldhigga noogu yimid markii warqadina loo diyaariyey oo nala qaadi rabay rag nabad sugidda ka socda ayaa noo yimiday waxay yidhaheen hala joojiyo si ay la geynaayo waxaa la geynayaa xarunta nabad sugidda dadka dilcooda la geynayo waa gartay waan diidnay oo waxaan ku niri annagu dadka dilcoo meel kulanti waxaan oo wanaagsan akhyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado waxaan idin soo gudbin doonaa xog muhiim ah oo ku saabsan khilaafkii ugu sareeyay oo ka dhex jira saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo difaacaya askari dilay qof shacab ah iyo sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya haddaba khilaafkaasi waxa salka uu ku hayay iyo arrin xasaasi ah oo arrintaasi ku saabsan ayaa daawan doontaan hadduu Allah awood leh u saamaxo dhammaantiinba muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeyso waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu sahlo ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeyo inta awlaadoonkan ilaahay awlaad baariyaha siiyo inta xanuunsanna ilaahay xanuunka ka dulqaado qof walba muuqaalka leegto ku qabta gambaleelkana furta waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa dambigood iyo dambiga waalidkoodba eeba inuu dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku abaalmariyo jannatul firdaws al-a'la faraj qeyr qabana ilaahay uu furo xaasidka waxaan leenahay wa min sharri xaasidin idha hasad al-xaasid la yaflah بإذن الله الكريم وحكون بيني هوكي قصارو حاسدك وامدك قريبي صوماليا يومد صومالي إلهي وحن كبري إن حاسدك ومد وكقبت ربنا حاسدك مجعله لا يكتل عقمه مقالك لا يكتكو قبو وحا مقالة مقدوشة لقود لويل لنا يراه كاسو أها بجاج لي وحانا دل كاسي جيستي سدح عسكري أو كتر سن عيدا ماذا نبت سجد إسردون كقرن كصومالي ذا النساء وحانا أسكرتاسي تعدق وين أي سميين دل كأهكد بايقاتين موطدي بجاج تهيد وكوشقين يويل كان dilka loo geystay lagu dilay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana saddexdan askari laba kamid ah ee qaraabo dhow ay yihiin ninka labaad ee ugu awooda badan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA kaas oo loo yaqaan Kulanajiis dadka Muqdisho qaarkoodna ay u bixiyeen Mariixaan Kibrey waxaana Kulanajiis uu ka soo jeedaa ama uu ka yimid dalka Mareykanka waxaana qaraabo dhow ay yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana shakhsiga labaad ee ugu awooda badan hay'adda NISA waxaana labada wiil midkood uu yahay adeer run oo waxa dhalay walaalkiis ka weyn taas oo keentay in sharciga uu hareer maro Kulanajiis isla markaana awood uu sheegto qoyska wiilkan laga dilay sidaad maqlayseen nabadoonka wiilkan la dilay ayaa VOA-da laanta afka Soomaaliga u sheegay in cadaalad muddo dhowr bilood hadda ay waayeen isla markaana ay tirsanayaan cadaalad darro aad u weyn wiilkoodana ay dileen askar ka tirsan ciidamada NISA dabadeed markii la qabtay oo lagu xiray xarunta CID-da ee dambi baarista booliskana ay halkaasi ay ka wateen ciidamo ka tirsan NISA oo soo diray ninka lagu magacaabo Kulanajiis ee qaraawada ay yihiin madaxweynaha Soomaaliya nabadoon Saciid Mucallim oo nabadoon u ah wiilkan la dilay ayaa VOA-da wuxuu u sheegay inay jirto cadaalad darro weyn oo ay tirsanayaan isla markaana laga biyadiday wiilkooda in cadaalad uu helo maxkamadana la hor keeno saddexda shakhsi ee dilka geysatay oo uu difaacayo Kulanajiis ninkan lagu magacaabo ee madaxweynaha Soomaaliya qaraabada ay yihiin ahna shakhsiga labaad ee ugu awooda badan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA haddaba Kulanajiis maxaa lagu bixiyay Mariixaan Kibrey waxaan ku eegi doonaa qaybaha dambe laakiin cadaalad waxay nabadoon Saciid iyo qoyska wiilkan laga dilay wali ay sugayaan cadaalad haddaba qaab aankee ah ayaa loo ogaaday shakhsiyaadkan dilka geystay ee qaatay mootadii bajaajta ee uu watay wiilkan la dilay ee sida xaq darrada ah loogu dilay magaalada caasimadda ee Muqdisho nabadoon Saciid ayaa u sheegay VOA-da in mootadii wiilka uu watay maalmo kadib la arkay ayadoo maraysa tarbuunka uuna arkay wiilka la dilay walaalkiis taasna ay keentay in wiilka uu wacdo askar ka tirsan ciidamada booliska iyo waliba shakhsiyaad isku heeb ay yihiin dabadeed sidaas ayaa lagu qabtay mootada bajaajta waxaana waqtigii la qabanayay ay saarnaa saddex wiil oo midkood uu hubeysan yahay uuna sido bistoolad waxaana lagu qabtay jagbonti ku yaal agaarka tarbuunka degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana dabadeed la geeyay xarunta dambi baarista CID-da ee magaalada Muqdisho waxaana goobta yimid taliyayaasha booliska ee degmooyinka Dharkeelle iyo Daynile waxaana halkaasi ay kaga codsadeen ehelada ama qaraabada wiilkan la dilay eheladiisa in wiilkan loo gudbiyo maxkamad isla markaana xabsiga dhexe Muqdisho loo gudbiyo laakiin waxa goobta soo gaaray ninka lagu magacaabo Kulanajiis oo kamid ah shakhsiyaadka ugu awooda badan hay'adda NISA sida uu sheegay nabadoon Saciid Mucallim oo kamid ah duqeyda dhaqanka Muqdisho nabadoon Saciid Mucallim wuxuu hoosta uu ka xariiqay in
uu kulmiye jiis aan raaya kulana jiis uu si qasaba uu kala baxay wiilashii hay'adda xarunta dambi baarista CID-da uu nageeyay xarunta godka jilco dabadeedna uu fasaxay wuxuuna uu u sheegay odayaasha dhaqanka iyo waliba qoyska laga dilay wiilkan marxuumka ee la dilay in ay laba mid ay soo galaan inay mag qaataan ama inay cagaha wax ay ka daayaan taas oo uu sheegay in nabadoon Saciid Macallin aysan u cuntameenin isla markaana ay tahay xoog sheegaso iyo waliba awood uu u sheeganayo kulana jiis oo shaatiga dawladda ugu faanaya odayaashan waxaana kulana jiis uu ku wargeliyay odayaashaasi dhaqanka iyo waliba ehelada wiilkan la dilay oo ay dileen shakhsiyaadka adeerku u yahay kulana jiis in ay tirsanayaan cadaalad darro weyn waxa dabadeed kiiska soo fargelisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana hogaaminayay Liibaan Cali Yar oo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad kaashanla sare Shuute waxayna la kulmeen kulana jiis waxayna ka codsadeen in saddexda shakhsiyaad dilka geysatay marxuumkaasi shacabka aana dishay in loo soo gacan geliyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya laakiin kulana jiis oo shakhsi aad u goor badan isla markaana ka goysaysta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku gacan seeray soo jeedintii iyo amarkii ay bixisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana arintaasi si weyn kaga carooday gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow iyo sidoo kale gudoomiyaha darajada koobaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Shuute waxaana warqado ay u qoreen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre iyo sidoo kale taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sida VO-da uu sheegay nabadoon Saciid Macallin waxaana nabadoon Saciid Macallin uu sheegay in warqadahaasi ay wada lafaaqeen ama ay wada qoreen maxkamadda ciidamada iyo sidoo kale ehelada wiilka la dilay loona gudbiyay saddexda xafiis waa kan madaxweynaha kan ra'iisul wasaaraha iyo waliba kan taliyaha hay'adda NISA ayna ka sugayaan saddexda nin mas'uul in ay helaan cadaalad ama wiilkooda uu helo cadaalad si shakhsiyaadkaasi maxkamadda ciidamada loo horgeeyo maadaama ay ka tirsanaayeen askarta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA laakiin kulana jiis oo loo yaqaan Mariixaan Kibrey ayaa gabi ahaanba ka diiday soo jeedinta maxkamadda ciidamada iyo waliba tan ehelka yarkan Maxamed ee lagu dilay magaalada caasimadda ee Muqdisho waa Maxamed Cabdullaahi waxaana uu sheegay in kulana jiis marnana aysan dhaceen in dhalinyaradan oo qaranka u shaqeynaysa la horgeeyo maxkamad ayna ogol yihiin inay bixiyaan magta wiilka lagu dilay magaalada caasimadda ee Muqdisho taas oo u muuqata in ay tahay awood sheegasho weyn oo uu sameeyo ninkan lagu magacaabo kulana jiis shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa kulana jiis waxay u bixiyeen Mariixaan Kibrey waxaana arintaasi lagu bixiyay in magaalada Muqdisho gaar ahaan markuu aadayo meel maqaayad ah ama meel laga cabo kubishiin uu xiranayo saddexda hareere ee wado uuna ku kala jarayo ilaa 4 cabdi bile oo kulana jiis lagu wado waxaana lagu tilmaamaa kulane inuu yahay shakhsiga ugu awoodda badan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA kulana jiis ayaa ku sugnaa dalka Mareykanka muddo fog wuxuuna haystaa baasaboorka Mareykanka laakiin wuxuusan ogeyn in dad badan oo Mareykanka lagu maxkamadeeyay in qaabkaas oo kale loo maxkamadeyn karo tacadiyada uu ka geysanayo Muqdisho aawadeeda laakiin qofka markuu xil hayo ama mas'uuliyad hayo uu ku dhex jiro cabdibilayaal ma xasuusto dacwadda iyo maxkamadaha Mareykanka ee sharciga ah laakiin waxa u muuqda oo kaliya dhalaalka markaasi uu ku jiro waxaana kulana jiis uu shakhsiyaadka kale maxkamadaha lagu soo taagay Mareykanka uu ka dheer yahay in shakhsiyadiisa beeshin ahaan Mareykanka 20 sano lacaga uu kaga qaadanayo inuu yahay qof beeshin ah taas oo ku naqanaysa dambi labaad asoo beeshin Mareykanka ugu qornaa in tacaddi iyo waliba kood far uu ka geysto magaalada caasimadda ee Muqdisho inta badan dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho waxa si toos ah askarta fulisay ay u hoostagaan ninkan lagu magacaabo kulana jiis oo magaalada Muqdisho hadda ka wada dhibaatooyin fara badan haddaba goordhow la soco kulana jiis iyo waliba tacadiyada uu ka wada magaalada caasimadda ee Muqdisho dhammaantiin waxaan idin rajaynaynaa basbas barwaaqo reereen cumri dheeraad oo eebba uu siiyo Soomaaliya nabad naqata qarannimadii Soomaaliya cagaheeda ku istaagta ummadda Soomaaliyeed oo israacda ilaahay oo dhammaanteen waxaan ka baryaynaa aan ku weydiisanaynaa umuuraha leenahay ilaahay inoo sahal اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا إلهي ودمان تنبي وحن كويديسان إنها قرقار كالمضى هذه نحريست هذا إلهي ودمان تنبي إنه قرقار وإلهي ودمان تنبي فرج غير قبل إلهي إنوفر إلهي أولادي إنو بركة أنت أولاد دونك أنا إلهي أولاد باري أسي إلهي أولاد باري أسي أنت قردونك أنا قر ونأكسن إيه مستقبل ونأكسن إيه بوسي إلهي أنت حنوسن حنونك كدل قاد يا الله دمان تنبا كربي عليس أنا إستيلاه فرج غير قبل دمان تنبي إلهي إنوفر إلهي وحن كامن قلنا عذراتك أدونك جرا فرين كورونا فيروس iyo waxa la midka abaya Allah ilaahu adan ka maangalina magacyada wanaagsan waxaan kugu weydiisanaynaa gargaarkaaga naxariistaada ilaahu dambigan iyo dambiga waalidkeena dhaaf
الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إله وحان كوكو وديسنا قركاركا كلمة نحرستا وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.